السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقارير kusoo dhawaada youtube ka Hidlayaan channel. maanta waxaan sameynayaa roodhida yar ama casariyaha yar fudud maasha Allah tabarakallah. waxaan ku wada Soomaali waxa lagu dhahaa roodhi faraawil weeyaan. marka la socdo wanaagsan asxaabay sidaan u sameeyay. halka waxaan ku shubtay 3 silitir oo caano oo soo diiriyay. faxisaduna waa faxisada qoyan marka 100 gram. marka waxaan kala barban ku darayaa 50 gram. caanahan yar baan fardiris ka soo dhigay aad uma kululayn marka aan ku dhex burburinayaa. marka roodhidana waa roodhi yar roodhi ma adigu dawaska roodhi oo kale laakiin waa casari oo kale laga dhigan karaa. caruurtu aad bay jecel maasha Allah tabarakallah. kulay wadankan aan joognaa kaneel buleer baleeraad bal dadku jecel yihiin. marka hadana waxaan ku darayaa milix. waxaan ku daray sonkortana waxaan ku daray silitir barkii. sonkorta maadaama kuma badin silitir barkii baan ku daray adigu wax badan ma dubeera 20 xabo meelaha. koobkaas weeye koobkan ku qiyaasiyay. subagana waxa weeye 50 gram waan soo yara diiriyay. intaas si fiican soo walaaqaya. hadana daqiiqdan ku daray. daqiiqda waxa weeye koobkan hadda idin tusay 8 ka 8 weeye 8 silitir. daqiiqdan ku shubay tasaaray. القاعدة نطلع ينتك صوت كان سكوير ولاقيا بعدنا قاعدة نقرأ إن شاء الله تعالى. عن طريق القرأ مدابي غيرات كتس في عم بنحشي الناس يعني نوقف في عناته مركز تدقيق في عن لوسي حشو حكو في عنانا يا وحياة تدبي لها ايد قاعد بنحشيها. fiican ilaa inta gacanta ka haraysa waan xashiyaa. ما شاء الله وتنسي في عم نسوي حشتي أدون دقنا إلى 30 دقيقة مالها أما 20 دقيقة أدوق إلى ينتك سوف فحصي سوف وريسو نقصن دقيقة. حتى راح نسمينا يا وحي عند حدا كمرين لها لكن وحين ويا لكنتن جرام الصبغة نادوق بناك نعبر يردي قاعد وما دلالين. مركا حنقول دريا دسليتر بركي السمكرة. laba malqacdood kaneel ah kaneelka shiidan. laba malqacdood kaneel dhageys qorfa shiidan. luqad kale aan ugu aadaa qorfaha shiidan adu laba malqacdood ah ayaan ku darayaa. markaas inta si fiican soo walaaqaya. fiican soo qasay marka daqiiqdii waa tan way noo faxday saasay soo fuurtay. hadda waan la waxayaa. halkan waxa inoo yaalaan baash birtaan saari lahayn marka warqadaas soo dul dhigay marka waxaan hadda la waxayaa. waan kala bixinayaa daqiiqdii ama la waxayaa
marka la socod wanaagsan. halkaas aan ku kala bixinaya yar daqiiqo ku shubaya sanay meesha ugu dhigin. halkan waxaa inoo yaala xabad ukun iyo sonkortan dusha kaga dari lahaa. sonkorta buurbuuran weeye marka waaba ku sawiran yahay inkastoo anigu si yar oo kale u sameynay wuu ku sawiran yahay sida loo sameeyo roodhidan kana bahalkan. si fiican baan u kala bixinaynaa. bahashi baan marinayaa bahasha iga xidhnayd waxaan mariyay bahashan hadda sameynayay subagiyo qorfihii shiidnaan isku daray sonkortii ayaan wada mariyay dhexdan saa u kala marinayaa dhammaanteed waan gaadhsiinayaa markaasaan isku laabaya ka bacdi. kaftinadan ka gaadhsiinayaa. saasaan isugu soo rogayaa labada kaftin baan isu keenayaa markaa. saasaan u jeexjeexayaa asxaabey in isla leeg baan ka dhigayaa. inta labada farood saa ugu qabanaysaa. hadaad rabto inaad weynaysan aduu 3 farood baad ka dhigaysaa oo ku yara weynaado markaa saasaad uga soo dhex saaraysaa. rajaynaya inaad aragtaan meesha igu yaraa cidhiidhi yaraa le aada dad arki weydaan sidaan leeyahay. sidaa yar aduu faraawilka ayoo kale aan ka dhigayaa. labada farood saa ugu qabtaad kasoo dhex saaraysaa saasoo kale noqonaya marka. saasaynu kusoo wada dhammaynana insha allah. waan soo dhameeyay asxaabey waa kan haddana xabadii ukun tahayd ayaan soo qasay markaa taasaan dusha ka marinayaa. dhammaantood ukuntaasaan wada marinayaa. haddana waxaan ku shubaynaa sonkorta yar burburan cagaad ayaan in yar dusha kaga dardaraynaa. ofinkana waan sii shidanay ama shoolada waan sii shida waxaan u geeyey kole shooladu way kala duwan yihiin anigu 200 ayaan u geeyey iyo kor iyo hoos.
markaan waan dhameeyay asxaabey xagoosan gelinayaa 30 daqiiqo xoogaa way qaadanaysaa aduu ma xisaabin aduu laakiin ilaa 20 daqiiqo meelaha marka waa kan asxaabey soo ka soo baxay maasha Allah tabarakallah baalka cusub quruxda badan buu noqday dahabiga jileec maasha Allah tabarakallah waxaan idin leeyahay asxaabta qaaliga haddaad ka heshaan muuqaalkan sii share gareeya like saara comment wixii talo iyo tusaalahan xagga hoose noogu soo qora waxaan idin leeyahay tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh